أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، حنكسر من تفسير في سورة القصص درسي المفقد بالأمان أيام آيات كنت يكون الله سبحانه وتعالى حين قصوا ورمي قصدي نبي الله موسى عليه السلام فرعون يهلاقي وسمي فرعون. الله سبحانه وتعالى وحكوا ورمي كتاب كيوسي نبي موسى عليه السلام، وحكوا الله سبحانه وتعالى تلمامي كتاب كاس كتاب كالسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن لبا كتاب وهنون يهي كوي ثورات رمين وإن أنا كان رميني هنون كل إنه هل كان رأسي هاي dadkii yiri ma la soo diro ma kitaab loo keeno oo kitaabkii Muuse kala la siiyo oo laga yaabo inay ku mucaaradayeen aayadaha Quraanka ay soo digdigayaan si kala fog soo digayaan. alla wuxuu walaqad haqiiqa wasalna wa uxilidnay lahum iyaga alqawla hadalka wa hadal mutataabi'a marba waxay u baahan yihiin soo digto marba dhacdada iyo waaqaca munaasib ku ah baa loo soo dejiyaan. taabacnaa lahum alqawl hadalkii waa isu daba dhignay lacallahum yatadakkaruun waxay mudan yihiin inay waansamaan oo marka dhacdo walba wax munaasib ku ah soo degaan waansankooda iyo waxgaradkooda iyo caqligooda inuu kobciyo. walaqad wasalnaa lahum alqawl ay fassalnaa waa u faahfaahinay wabayannaa waa u caddaynay lahum alqawla lacallahum yatadakkaruun inay waansamaan ayay mudan yihiin oo wax u qaataan. marka quraanku sidoo isaga daba imanayo iyo munaasabad walba wax u munaasaba loo keenayo waa arrin keenaysa in la waana qaato oo la fahmo oo caqligooda iyo maskaxdooda ay geliyaan oo ku waana qaataan. alladheena aataynahumul kitaaba min qablihi hum bihi yu'minuun. allah subhanahu wa ta'ala halkan wuxuu ku amaanaya quraanka iyo xaqnimadiisa ayuu ku sugayaa allah subhanahu wa ta'ala. dhinaca kalena allah wuxuu ku amaanaya dadka culimada ah ilaahay awliyadiisa ah ee kutubtii hore rumeeyay ee quraankana rumeeyay. alla wuxuu alladheena kuwa aataynahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aanu siinay wa tawraad iyo injiila min qablihi quraanka ka hor hum iyagu bihi ay bil quraanka yu'minuuna kuwa rumeeyayo. yani dadkii kitaabada hore la siiyay ee sida xaqa u fahmay ee quraan aan bedelin waxba ka nuqsaamin hum bihi yu'minuun quraan kana way rumeynayaan. oo waayo labada kitaab way iswaafaqsan yihiin oo kutubtii hore iyo quraanku way iswaafaqsan yihiin. sifaadkii tilmaamihii kutubtii hore lagu sheegay ee Nabi Muhammad lagu sifeeyay ayaa kitaabkan ku sugan oo ay ka dhexeeyaan. meelo badan alla waa ku sheegay alladheena aataynahumul kitaaba yatluunahu haqqa tilaawatihi ulaa'ika yu'minuuna bihi rumeynayaan. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وإذا قرت يتلى الآخرين عليهم بشودا قالوا حيرانيا marka quraanka lagu dul akhriyo qaaluu waxay oranayaan culimadii kutubtii hore taqaanay aamanna wa rumaynay bihi quraanka innahu quraanku alhaq haq weeye min rabbina haqqi weeye xagga rabbiga ka yimid. إنا أنه كنا وحانو هين من قبله قرآن كان هرتي مسلمين وهو جانسن وإله وهو جانسن أيانو هين الدين تهره أيانو كبر مني يكتب تهره. هل كان مركع آيادا هذا الكأيكو هذله القرآن كان يقول الأخير إلى هذا إنه الحق من ربنا وحقي حق ربي يكي. هذا الكأس هذا ليس كيري هذا المجاملة هذا اللي يسقر حين يوم كلية معه وهذا الحق وقرصور كبسان وعدالة كبسان صوتهم حيتها وحق بين هذين وايو كتبتي هوري وحي كويا اللي بوافقسين لنعك لو حق رسولك الله صور ديري تلمامه لو شاغي كتبتي هوري هيا اينا كويا ولي وحق اما الرضا النواهيده وحو امر يو وحو نهينيو waxay ku dhisan yihiin xikmad bay ku dhisan yihiin. Allah subhanahu wa ta'ala waa xaq oo wixii haboonaa in la nahiyana waa la nahiyay wixii haboonaa in la amrana waa la amray. innahu alhaq min rabbina
dhinaca kalena wuxuu ku dhisan yahay qisaska iyo taariikhaha uu ka sheekaynayo iyo waxa quraanku sheegayay qisaskiisu waa qisas saxiixa oo qisooyinkii dhacay ee dhabta ahaa ee kutubtii hore ku yaalay innahu alhaqqu min rabbina yani hadalkaas oo dhani macna hadalkooda ay waa xaq min rabbina waa hadal ku dhisan arkaantii iyo tiirarkii garsoorka iyo fahanka iyo garashada iyo kutubtii hore iyo cilmiga wax ku dhisan kuwaasaana hadalkoodu macquul yahay oo qof laakiin xaqi garanayo oo doodaya oo dafiraya ama qof jaahil oo waxba garanayn hadalkiisu wax ka soo qaad ma leh hadduu quraanka ku hor yimaado hadduu shubhooyin iyo shaki ku furo hadduu doodo ka hor keeno warkaas wax qiimo ah ma leh yaa warkoodu qiimo leeyahay dadka cilmiga iyo aqoontii si sax u haya oo garan kara maxaa waafaqsanayn an xikma wa an aqlin wa an ilmin ay ka soo naaxanayso warkooda iyo hadalkooda markay leeyihiin inna kunna min qablihi muslimiin waxaanu ahayn quraankan ka hor muslimiin oo waanu hogaansanayn islaamnimada iyadii baa markaa waxay keentay inaan quraankana rumayno si raacno lan hada huwa tariiqul islaam tariiqul islaam ku asaas oo qofka muslim ah ee kitaabkiisii hore si fiican u rumaysan oo mutaabic ah kitaabkiisii wuxuu ku wareejinayaa kitaabkan kale kadibna saasoo muslim u sii noqonaya wasaas inna kunna min qablihi muslimiin taa macnaheedu waxa weeye qolada soo raaci weeday kitaabkan koodiina muslimiin kuma ahayn inna kunna min qablihi muslimiin marka hore muslimiin ahayn kuwa kitaabkan soo raaci waaya koodiina muslimiin kuma aha sababtu maxay tahay burinta ay kitaabkan buriyeen ee beeniyeen waxay ku beeniyeen koodii horena way ku beeniyeen iyo wixii ku qoran kolaas marka ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaas ayuu amaanay maxay leeyihiin fadligooda iyo ajarkooda iyo thawaabkooda alla sheegaya ulaa'ika kuwaas yu'tawna waa la siinayaa ajrahum ajarkooda marratayni laba jeer baa la siinayaa bima sabaru bisababi ma kii sababtii sabaru ay ku sabreen bisababi sabrihi sabirkooda daraadi maxay tahay macnaheedu in aad kitaabkaagii hore ka tagto oo mid kale raacdo oo meesha sheekha iyo caalimka ka ahay ee dadku ku wada eeganayeen kugu daba tukanaya aad ka tagto oo meel dad kale wataan oo hogaaminayaan aad xubin ka noqoto naftu aad ma aqbalayso marka hogaamiyu ahaa waa ka soo tagay halkan uu taabic ka noqday iyo raaci marka arrintaas sabir bay u baahan tahay kaysi nafta inaad soo xakamayso bima sabaru sabab sabrihim sabirkooda ay ku sabreen al-intiqal ila diin al-jadid ويدرؤون بالحسنة السيئة إلهي سبحانه وتعالى أخلاق ذو التلمامية ويدرؤون حيكون دفاعيا بالحسنة وناج السيئة حمانتها ومرك حمان لو سمينا حق أخلاق ذا يدقنك وضد أبو في عنه علمي يا أقومت بيدكتيو في حماية وناج بيكون دفاعيا كهرجينية ومما وحي رزقناهم عن كل ساقني ينفقون وبحنيو مركا انت صوت المامور الصبر صبر إلهي طاعة سلو صبره معاصي سلو صبره قدرت له صبره صبر كبيرلغي iyo xumaanta loo geysto ay wanaag ku difaacayaan wada waa nooc kale oo sabirka kamida iyo sidoo kale wixii lagu irsaaqay ay bixinayaan oo ay ka bixinayaan waxay waajibka ah zakooyinka ka bixinayaan nafaqaadka iyo biilasha ku waajib ay ka bixinayaan sadaqooyinka sunnaha ay ka bixinayaan ihsaanka iyo waxtarka ay ka bixinayaan mimma razaqnahum yunfiqun wali marka dhaqankooda laga waramaya ay labada ajar ku heleen wayda goorta samiicuu ay maqlaan اللغو هذا الترضى هذا الكنعنع ده يعني قيمها الله هي مركي مقلان أعرضوا ويكتشيستان عنه حقيس وده قصته وحما لغوي هذا الكوضا ما هي ويكتشيستان وقالوا حي لهذان لنا أن نبوحان لنا هي أعمالنا أعماش يضا ولكم يمكن بحال الذي غير اللغويو أعمالكم أعماشين سلام للقليو عليكم دشينها هاتو هناك لك حية وي لا نبتغي مدونينو الجاهلين كو جاهلين دوني ميو عمل كودا مربنا لدقن كودا مربنا لمران كودا مربنا وصاحب كودا مربنا طريقة يطبع الجاهلين يضدك اسكن عن علينا يا هذا الترضى وضع اسكو طريق مني هنا مع سلامة ساسي قرنا يانو لغوي جاي هذا الكافون وكتشي سنيان وطريقي العباد الرحمن وكسو عمهاني آياتها المكان waxyaabaha ay ku soo degeen isoo nuzuulkooda culimada qaarkood waxay ku tilmaameen Saciid Jubayr oo kale uu leeyahay waxay ku soo degtay 70kii qisiisiinta ahaa ee uu soo diray boqorkii xabashada ee Najaashi
رحمة الله عليه لكن النبي هو مادين عليه السلام عليه الصلاة والسلام وحكود الأخير ياسين والقرآن الحكيم إلى أمه كدي نوحي بلا بين أويان ومكاسب إسلامه سيدوك لو حكوسو دكتي آياتنا كسو دكتي وحكى الله محمد بن إسحاق والسيرة كورنيا رسولك عليه الصلاة والسلام يقول ما دين لبعتني أم واحد كله والنصارى دي كاملة وحقا حبشتي من الحبشة زين النبي إنسان يقول حي ما دين ولا فلسطين ولا هذلين ويديين رج قريش هنا ماشي كده وياه يقول لهم سؤاله ويدينا يعني كدبنا رسولك عليه الصلاة والسلام في سؤاله جوه الجوابي أيو يجنا قرآن كل الأخري الدين تويا إلهي ويا وفي قرآن كمقلين يقوين نبي أجيبين إلهي بالروميين نبي روشيجين شاجين حق ويقرتين وتطور المستوي مركي أكعين قدرين أبو جهل يخوف وتقريشة لا شك يسوع عليه والله هذي ورسيل هذين إلهي هيدين هو شيء ضد بعد صادر صدي سهم حبته سهم على يدي صادر إنك النوع وركينا بالين كيون هل كمرة الله فلسطين بتكره ميسين ويسجل تجوتين ولي جاي ما نام أرك ضد الدروه لا صادر سهم ولا دري أو إرجاء أو إذا كل تماما مركبة إذا كان رجع تكون علم صادري بعدينتي كنقطتين مركز وحي لهذين سفر إذا كدق صنعنا أرك سلام عليكم لا نجاهلكم جاهل المدينة إني راعنا لكن ضد علم له وعقرنا يو كتبه له يستوي وحيقانه هل كان النبي يميو علمي القرآن الجود الأخير وحفامي وعقرنا يا يني جاهل هل كان قرشة على تاجن يربوط يا مرن شغل اسمه لها لا نبتغي الجاهلين لك لك حياة لو جاهلين توعس وما هذا الله بقول هذا التردي اسكت جن إلهي سبحانه وتعالى آيات كاس أي كسفي وتلمامهاس آيات ذكرنا وقت سورة الوشة مائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق حق بكرت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هل كان الله سبحانه وتعالى حكوا رميا هنومك ين حق اللي فهموه إن يتهوى إلهي أقع سبحانه وتعالى قف قلبي يسين هنومك كل وحققاته الله سبحانه وتعالى سجع عبد دونها المنية كذلك يجهدي واحد بحصور واحد صورني هنونك مكانا هنونك إلهي وضحية سبحانه وتعالى لكن وضعي طريق صببه نبينا وحنقول عليه الصلاة والسلام إنك أدوني محمد لا تهدي مهنون سد من عد أحببتها تعلاته ولكن الله يهدي هنونيا من يشاء عد دونه وهو على أعلم سجع وقال بدن ويقعنا بالمهتدين عدة هنونيسا يهنونك متيسطا اللي سجع يقعنا سبحانه وتعالى تلك معنيه الحويان هداية التوفيق هداية لله سبحانه وتعالى نبي إن هداية وقريبة كذا ومحيط هاي هداية الدلالة والإرشاد هنونك إنه وحتصه ضدك طريقة وافتيميه وحق ميشوي هاي تصور أنت سنبي عليه وقرآن تعالى وحبوش هذي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ضدك وحبوها ونساء شيء توصلت لهم النساء طريق ما كتاسي والطريقة إلا تصور وحق ميشوي هاي لا تصوي أما إن حقا لفهمه وقلبي لقليو نبقى هدو عدي يمكن الله عليه الصلاة والسلام عدي عاوصي يسقرب تاكتي أوتش على عضي أي نبقى قلبي يسقري لها وأيا أبو طالب وأدير كيس الدفاعي يسقرب تاكي دعوة اللودي وأبال بدن قارسيي لأن نبقى هنوك قلبي يسقري لها عليه الصلاة والسلام لكن نجري أبالك قال وحي مقطعي إنه كده داري إنه إسلام إلى آخر كودن بي حديث ورينيو سعيد المسيب رحمه الله رضي الله عنه حليه رحمة الله عليه أبيه كورينيو وكان أبو طالب يريد كسر حاضرتي نلقى أمي عليه الصلاة والسلام حلته أبو جهل ابن هشام عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وسرسوك في هذا لا إله إلا الله ده كلمة عن كوجود ضوء الأفتس أبو جهل بن مكروحي عبد الله بن أبي أمية أبو طالب مدينة عبد المطلب النعيسة رسول كعل علي رسول ينوي كعليين إلى أمرك ودن بيقولي هو على ملة عبد المطلب
تاسان وحي دنبيي ee uu ku dhintay ay noqotay Abu Talib nabigeena kaleey salaatu wasalaam saasa marka loo leeyahay cidda aad jeceshahay aad ma hanuunin kartid ilaahay baa hanuunka haya subhanahu wa ta'ala taasina marka hanuunto ee xaq fahanto waa inaad alle u shukriyo mahadnaqo maaha aqligaaga garasho badnaantaada fahankaaga kartidaada waxaas oo dhan kuma helineen ilaahay baa ku hanuuniyay alxamdulillahi alladhi hadaana li hada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا هل كان الله سبحانه وتعالى فقور رميا شبهه أي قالوا كانين يقول قالوا marka meelo badan laga soo xidhay xaq loo sheego waxyaabo iska keensadaan iyagu alifteeno ay leeyihiin ay cabsi gelinayaan naftooda iyo dadka isku qancinayaan waxa kamid ah waxay dhahdeen hadii aanu hanuunka raacno oo maxamed maanta rumayno carab oo dhan baa ka soo horjeeday khalqiga oo dhan baa ka soo horjeeday dadkii oo dhan marka hadii tuulada yar ee Makka ay islaamto oo maxamed raacdo ee cadow badan bay yeelanaysaa kadibna waa lagu soo duulaya qabaa'ilkii carbeed oo dhan meel walba waa laga soo duulaya dhulka la naga baraakicinaya waa la nalaynaya marka in sidan la iska ahaado oo aan la raacin nabadgelyo iyo amaan baa la biday saasiin marka arintaas waa arrin khalada inaga lafteena marka xaqaha lagu dhaqmo diinta ilaahay iyo sharciga la isku xukumo kitaabka ilaahay hal la qaato bal gaabina ku leeyahay isaaya saal sameeyo gaala xaga ka arkaysa kuwa kale halkan ay ka ifinayaan qofka xoolaha hadii aad multazim noqoto cibaadaadka iyo khayrka iyo wanaaga iyo laazinto oo shacaa'irtu ka muuqato waxa waa lagu shaambadaynaya bixisa lagu shaambadaynaya dad bal ku yeelaya dhibaato kale lagu geysanaya ama dadka aragtidooda xumaanaysa dowladda xijaabka iyo asturka iyo hawsha qaadato dadku way tuhmayaan indhahooda ka dhacaysa dadku dhan baa la yaabaya dad san samayso hada salaam badato dadku kan salaam badana muxuu ahaa la oranaya marka waxbay iska aaminsan dadku wuxuu isu geedeystaan ama dadka iyo bulshada iyo wax ka baqaan ilaahay baa inuu raali geliyo Allah subhanahu wa ta'ala amniga sharafta karaamada nabadgelyada waxaas oo dhan ilaahay baa haya subhanahu wa ta'ala sharcigiisa ku toosnow diintiisa qaado sharcigiisa fuli rumeen isaga wuxuu bakaaga filan Allah subhanahu wa ta'ala jazaa iyo sharaf iyo wanaagisa ku filan kuwa marka iyagu wax aan dadka la siin baa la siiyay xaramka ilaahay bay degan yihiin cidii ku soo duushaba waa la qabanaya asxaabul fiil baa la qabtay dhawaan ومروديال وتي سoo kacay meesha dunyada marka xaramka aaminka ah joogo beero badan walaha isaga wax kama baxaan beeraha hareerihiisa Taif iyo dhulka hareerihiisa waa looga keenaa miraha oo caalamka looga keenaayo ganacsiga iyo wax walba uga imanaya oo dadka wufuuda soo xajinaya soo cumraysanaya kuwa ganacsiga ku imanaya waa wax kasto caalamka yaal baa laga dhixilaya ma ka keenay waxa soo nimca way haystaan ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dadka kaga duwan markay gaala ahaayeen amaan bay helayaan markay islaamaana amaankii bay waayayaan taas aqli ma wax khaldan way alla wuxuu leeyahay waqaalu waxay yiraahdeen gaaladii in tabic hadaanu raacno alhuda hanuunka hadaanu raacno macaka la jirkaan waanu ku rumayno nutakhattaf waxa la naga dafaya min ardina dhulka yaga la naga dafaya dhulka la naga qaadaya cadow iyo col iyo waxbaa la gelayo dhulka la naga barakicinaya la naga qaadayaayo wakaas marka colaad iyo cadaawad weyn baanu gelayna alla wuxuu awalan makin miyana u gacan gelin wa ana makansin lahum iyaga haraman haram aminan nabadgelyo haram amniya miyana u gacan gelin u dajin yujba haramkaasoo loo soo raro ilayhi xaqiisa thamaraatu kulli shay wax kasta midhiisa nooc kasto midha ah geed kasto la cuno midhiisa loo soo raro loo soo qaado rizqan li ajli rizq soo rizq min ladunna xagga yaga ka ahaaday oo aan ku irsaaqayno dhulka aan beeraha lahayn ee qorfaha ee buuraha aan waxba ka bixin dadka jooga rizq aan ku irsaaqayno oo ducadii nabi ibraahim alayhi salaam walakin aktharuhum laakin badankoodu la ya'lamuna garan maayaan oo miisaankaas saa wax u miisaan waayaan saadaradeed waxay ku hadlayaan isaga hadlayaan وهذا iska macnaa hadal tiraa wax qiimo ku fadhiyin oo aan sax ahayn meeshay degan waa xaram amni weeye ilaahay baa nabadgelyo caamasiye ilaahay rizqigiisa allahi risaaqadiisa siiyay amniga siiyay iyagoo gaala ah hadii ay islaamaan hanuunka qaadaana ka qaadi maayo falyabudu rabb hada albayt alladhi at'amahum min juu'in
وآمنهم من خوف. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هل كان وصر بابني لنعك على لقط سيا هلا بمشهد كيميسو ما هي ملك لوكاسو سقرا مركا حدا حقنا كيجينه هدان إيمانك قادنا وأن هلاك يا المسو دولة يا روح الله قاد أورنني واحد إكتان مركا هنون كل راعي وياه بهلاك لماذا وقريوين بدن وهنون كلاك يعني قادم وعي وكبري ونعيشدوا دي وحي لسيكو كبري لا هلاك إذن كنا طريقي وكله الخطر بالوجهتان مركا إسئلالية هذه عبسيدة يوضبقين تقرب إذن كتاهي كان محقق والله بايه والسنة دي طريقي إلهي هاي إسئلالية هلاك كبقى فسألوا وكم بدنا أهلكنا إنتان هلاكني من قرية قرية يمجالو بطيرة كبيرتي معيشتها نلوش لكو كبيرتي رزق السيئ من معاضئ وحل السيئ كحد كبيرتي فتلك مساكنهم فتلك تاسي مساكنهم ميلها يدقنايين ويهودي لم تسكن لمدقي من بعدهم يجد بدور إلا قليلا وحي المويان ودي هلاقي مدد أي تشوهين سلا أيهين آثار تهرات كذا رئيسة وكنا وحنا نهاي نحن أنه الوارثين عد لحشيبنا وأنا قاعد حلني يعني قالوا لي الله باقية أو هري عدي دجنينا حبك ما هاد ما بابعون هل كان مكان تصال لسي مركا نعيش ده لو كبرو إن معاد الله يستو لقى شكري وايو إن منعم كي عليه معاد بحي لو شكري وايو مركا سمحاي ماذا هلاك بالماذا بدنا قرية أنت نمعلسي نمعلي كوكبرتي وعليه نمعلسي وشكري ويدي فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ويوري ولم يدقن ساسي إطلقوا تهي مركاس قال له أنا قاعد حلني وأهرني مركا كان واسع بيبني آيات كرنا وطن صومرني وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. هل كان الله سبحانه وتعالى حقوقهم إياه عدل جيس وقريوين كان هلاك ولا إسكالا مصر دونا ولا إسكالا هلاقي وحا لغو هلاقي إني هلاقي متيستين ومحاكو الرئية إن لو دقي من رسول الله صادري إن دينتي لو فافاهي هنونكي حجدي إلا تصي مركي راعي وايين كبعد بالهلاك. الله سبحانه وتعالى ساس إليه وما كان معها ربك ربك مهلك القرى قريوين كمد هلاقيا حتى يبعث إلى أدر في أمها قريوين كعاصمة دولة يتأوين رسول إلى أدر رسول كان يتلوك أخريا عليهم دشودا آياتنا آيات كيغا وما كنا منه مهلكي القرى قريوين كعد هلاكتا إلا مويانه وأهلها ظالمون كودي ظالمين كودي ضدك الظالمين مقدان مويان سكلوا مهلاكنا إلهي عدالته سبحانه وتعالى أي كمتها أو قرية كستا اللي مهلاك قريوينك إلى أدر عاصمة عد حقا جارسيسة والرسول ما كرسولك على الوضع يا أمها أي أم القرى قريوينك أخويوينك ميلكسو بالدقية هي waxaa jira magaalo weyn oo caasimad ah xudun oo halkaas oo tuulooyinka oo dhan ay soo adeeg tagaan loo soo shiro oo dadku yimaado oo jira marka qaryooyinku ta ugu weyn magaalo madaxda u ah loo soo shiro ee gaadiidku soo aaday dadku yimaado loo soo danaysi tago taasa rasuulka laga soo diraa oo macnaheedu waa maxay warka faafaya warku markuu halka joogo qaryooyinku oo dhan si dhab u gaaray wal ogaanay laakiin haddii qaryo fog oo cidla ah oo geesa laga soo diro waxaa laga yaabaa dad badan aan khabarka iyo warku si sax ah oo dhameystiran u gaarin saasaa loo soo diray dhinaca kale Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay nabi Muhammad alayhi salatu wassalam uu ka soo diray wakadalika awhayna ilayka litundira umma alqura wa man hawlaha rasuulka waxaa loo soo diray inuu digo umma alqura wa man hawlaha qaryooyinka hooyadood iyo inta hareeraha ah marka waxa la waa Makka oo xuduntii caalamka ومن حولها نوا أدونك ورن قريونك ورن مركا هالكاس على جد رسول رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام
عموم كذي عام مديدة أي هالكاسنا لقى قرنيا وما كان ربك ربك معها مهلك القرى قريوين كمن هلاقيا حتى يبعث إلى أدر في أمها قريوين كهو يدود أما تبوين رسول كاسو يتلو أخريا عليهم بشهد آياتنا آيات أخريا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا رسول صلى الله عليه وسلم وما كنا منهم مهلك القرى قريوين كعد هلاقيسا إلا وأهلها ظالمون إن إهل كيد ظالمين نقدان مويان مركا أصحون بإلى هلاقيا لكن لسكنا هلاقيا مركا عدي ظالم نقطة وحق طريق الراعي وإذا هلاقيا اسمه أدير قلوبي ساوي معنيه وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها هل كان الزهد على الصرية الدون كان إيو إن هذا الهدف كذا يعني تقدر وقته وواحد هدف كون ولا يعون نقضه إلهي سبحانه وتعالى كان جلنتيس قال له كليها وما وحى أوتيتم لينسيي من شيئا فمتاع الحياة الدنيا فمتاع وراحة الحياة الدنيا نرشن الدنيا وزينتها القرح وإنتاس وحكس طبعا ستان واللي ينسيي وهذا كفاني كرتان أن هيلي كرتان وحوي ونرشن الدنيا راحة متاعنا ويانو حغير بالغو راحة يستايو كدنا ولا رافع ولا جنبي واحد هيستطيع إن يبغى تكون راح يسانس ولا يقول به ولا نافع هذا العافمات قط عذر باكوتيرة تظل يرتها يجيب باكوتيجا دي عاد مرش هاي جيري باكوتيجتا دي عقبضة إيو أنت أنا كمان مقنع أنت عبشق يا عقبضة إيو حن باكوتيجا كان حغير الراحة ولا جود بيومي شجعي منصب يدير هذا هاي صور بريوة كتير إنسان يربو صعبة مخوها متاع الحياة الدنيا يقرح ذا الدون كوي وما عند الله وحي الله اكتساء خير أي خير بدن حاجة المامها هي حاجة مقالك هي حاجة كمية يترضى وحا خير بدن وحي له اكتساء الله سبحانه وتعالى وأبقى يدا باقي ما بدن وحاجة تشوف كده يدا فيها مركا لبا دنا wax laga qiimeeyo yaa badan oo fiican marka la eego ma ciid Allah khayr waxa ilaahay agtiisa ba tilmaan ahaanna fiican tira ahaanna badan oo nimcada Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa xagga joogteynta iyo waxa ma la sii haynayaana wa abqa yada baaqi nima badan oo tan wax zuulay afa taaqilu midan aqli lahayn badan midan aqli lahayno halkaasna waxa leeyahay isbarbar dhig wada aqli waa inuu ku siiyaa ta khayrka badan ee fiican inaad qaadato oo ta laga fiican yahay ka tagto aqligu waa inuu ku siiyaa ta dhamaanaysa markiiba dhaafaysa inaad iska dayso oo ta joogaysa ee daa'imka inaad qaadato marka cid kasta oo ka doorata adduunka zuulaya aakhirada ka doorata aqligeeda nuqsaan fi aqliha way nuqsaan aqliga dadkana waxa ugu aqliga badan ka aakhira ugu doorashada badan ee waqtigiisa juhdigiisa iyo amalkiisa aakhirada ka shada kaasa ugu aqli badan markasto qofku adduunka uu gashado xaga maalgashigiisu xoog bato binuqsaan fi aqlihi door bido markay timaado cibaadadii iyo adduun isqabsadaan laba suurtagal waayaan ama cibaadadan gal ama adduunka shaqo ay noqoto labadaas hadduu adduunka qaato markaas wuxuu galay aqliyahan wax kasta kamiya kasta ay tahay salaada jamaca aad soo tukato cibaadada iyo taacada aad samaysato khayrka ka shaqayso kaaga khayr badan kaaga fiican marka waa in adduunku ku noqdaa waqtigu waa laba waqtiga asalka ah waa in cibaadada iyo diinta iyo khayrku ku galo waqtiga tanawiga ah labaad secondka ah waa in adduunka adduunka iyo waxa u baahan tahay shaqada wana arki doona qaaruun oo la talinayo wabtaqi fiima aataaka Allahu daar al-aakhirah wala tansa nasiibaka min ad-dunya adduunku marka waa arinta labaad ee labaad Allah subhanahu wa ta'ala marka hadana aqligii buu ku soo celinaya isbarbar dhigaya afaman wa'adnaahu natijadii labadii raaxadii adduunka ilaahay agtiisa waxa yaala labadaas oo la kala doortay oo midba wax doortay kii adduunka doortay muxuu noqonayaa xaalkiisu kii aakhirada doortay xaalkiisu muxuu noqonayaa aayadana ina tusaysa oo aqligii bay sii faafahinaysa afala taaqiluun afaman wa'adnaahu afaman min wa'adnaahu aanu u yaboonay wa'dan yaboo hasanan wanaagsan oo de janno iyo aakhiro iyo hawl badan loo yaboohay فهو يسوي لاقيه لكل مياه اللي يبوها إلهي وعدبه كمان مد متعناه أنور راحيني متاع الحياة الدنيا
راحة نلوشن الدنيا ثم دينا هو يسوي يوم القيامة مالك كقيامة من المحضرين كوح صارت الله حاضرين اليوم كم من نقنين أنا عذابك اللي دول تشوفيني ولا كيني مركا لبضاس اسم الباع مايا اسم الدول مركا آخرة لجارو من يبوه هي بلنقات إلهي لكم هي صور شقيستي سوء عباديستي ربي بساطعي مع سيدي مكفر قادي وعده إلهي لكم هي وشندي مهلية نمعدي مهلية كاس يمد حوالي الدنيا تلور راحي آخرة وحلو تشورين واسكسوا حاضرين سواء حسابتي وحلو هينين أو عملوا سنين تشيرين مي اسكنون نقنيا مايا عقلي مركا هلا شقيسيو هلا دورتو ماشي إلهي سبحانه وتعالى كل وينسا يوعد ربطها حق ربي سبحانه وتعالى كإيمانيا طه الله مريو أيا الله سبحانه وتعالى